maayirka caasimadda Hargeysa oo heliyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa waxay deeq raashin agabka guryaha iyo weel isku jirta gaarsiiyeen qoysaskii guryahooda ay ku gubteen kaabka barakacayaasha naasaha blood ee bariga Hargeysa ee degmada Axmed Macalin Haaruun. Maayirka caasimadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta ayaa waxay tacsi u direen qoysaskii dadkoodu ku dhinteen dabkii ka kacay kaamka naasaha blood ee bariga magaalada Hargeysa. Sidoo kale maayirka caasimaddu waxa uu ballan qaaday in dadka halkaasi degan muddo 7 gudihii halkaasi laga doono lana dejin doono meel kale. maayirka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshadu oo arintaasi ka hadlayana waxay yiraahdeen waxaan u direynaa tacsi qofkii halka ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayna in Ilaahay caafiyo. hawsha waxay u taalaa ciidanka booliska ogahay inay ku filan yihiin oo dhamayn doona baarista wixii ah insha Allah taala dabka wixii keenay اللهم صل على محمد halka kaagistana wii gudahood insha Allah taala in dadka halkan laga helo meel ay leeyihiin la dejiyo ayaan u sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. iyagana waxaan leenahay dadka intaasi hadalkan kale meesha socda wax bileysku baadha mooyee adag wax suuqa laga yiraahdo ayaan u jirin. dhowr iyo 40 qoys bay ahaayeen 50 qoys baan u soo xisaabinay wixii loo keenay ay dadday tahay dawladda dadday tahay tagawistoodana sidii ay hooy noogu koobnaayeen cid dambe oo ku gali kartaa ma jirto. insha Allah taala si dhaqsan oo dhameyn doona aad baan ugu mahadnaqayaa ciidanka bilayska sida uga hawl galeen iyo ciidanka dibdibisku habeenkii dhaweed ay masiibadu dhacday. waxaan leeyahay taliye waan kugu kalsoonahay inaad amaankooga iyo ilaaliso inta ay hawshu dhamaanayso. halka waxaan tacsi ugu dirayaa qoyskii iyo qaraabadii ka baxay geeridu ku dhacday iyo dhaawacu dadka gubashadu soo gaadhayna waxaan leenahay Ilaahay samiri iimaan haydi ka siiyo cidda dhibaatada geysatayna Ilaahay baa xisaabteeda loo bilayska sheegi doona. waxa muhiim ah sida maayirku yiri wasaaradda arrimaha bulshada dawladii hoose dawladda dhammaan waan wada shaqeynaa wixii wax laga qaban karo wixii kale ee cidda dhibtu gaadhayna iminka waxoogaa yaro agaban badnayno aynu farsamayn doono ayaa la sheegi doona. saxaafadan waxaan ku codsanaynaa dadka masaakiinta sidii loo caawin lahaa in fariinta meel walba la gaarsiiyo. kulliba weynigii soo aragnay maayirku sugan hogaaminaya meeshii dhibaatadu ka dhacday Ilaahay dadka dhibaatada ku dhacday wax xeer qabaha ugu bedelo. wax weyn ma aha wax dawlad ahaan isku soo ururinay iyo ciidaha inala shaqeeya oo ah raashin yar iyo baco iyo cawo iyo dhar intaasaynu qoysaskii magaranaysa tabaaladu gaadhay ay nagu tala galnay dadka muxsiniintana waxaan iyo weel yar. Jaamac Mal warbaahinta SBC Hargeysa.